magacaygu waa Maxamed Cabdi Darwiish ku dhawaad saaxiib barnaamijka. waad mahadsantahay Maxamed. waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan ku weydiiyo muxuu yahay saameynta baraha bulshada uu leeyahay? Baraha bulshadu saameyn runtii waxa weeye aad u ballaaran ayuu leeyahay. waxaana oran karaa waxa weeye waxa inoo saameysay waxa weeye dhanka taban ama dhanka wanaagsan ayay shacbiga ama dhalinyaradeena inoo saameysay. waxa weeye waxaad arkaysaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ama ardaydiiba ayagoo aad ugu mashquulsan waxa ay soo dhigaan reaction laga bixinayo oo waxaad arkaysaa waxa weeye afar wiil ah oo dhalinyaro gurku wada nool aan midna mid la hadlayna oo kale uu la nool yahay tacliintii uu kaga mashquulay sheekadii uu saaxiibadiisa ama caqliga uu ka faa'iido lahaa uu kaga mashquulay xataa waalidkiisa iyo inuu familigiisa waqti la qaato uu kaga mashquulay oo nin walba uu caalam kale iyo adduunyo kale u nool yahay afartaa wada joogta aanayba wada hadlayn baniyo. marka saameynta uu yeeshay runtii waxa weeye saameyn uu bulshadii kala mashquuliyey, uu bulshadii tacliintii ka mashquuliyey, uu bulshadii tacabkii ka mashquuliyey. qof walbana waxa weeye wixii uu waxa weeye ka faa'iidi lahaa uga mashquulay wax aan faa'iido u lahayn oo waxa weeye hadday tacliintii tahay hadday tacabkii kala tahay nin walba waxa weeye wax la soo dhigay ka falcelintood iyo wuxuu asagu dhigay waxa weeye ku dadaalidiisay bulsho badan u gaari lahayd ayuu waxa weeye uu ku jira. waxyaalaha kale oo waxa weeye aan faa'iido darrada inoo ana waxa weeye waxaynu la xiriirnay caalam kale oo ajaanib ah. marka waxaynu ka soo waaridnay dhaqamo xun oo waxa weeye dhalinyarada Soomaalida aad saameyn ugu yeeshay. marka waxa weeye dhaqan kale oo xataa inuu kusoo kordhiyay foreign markii aynu baraha bulshada aynu isticmaali jirin shacbiga Soomaalida waxay haystaan dhaqankooda. ninka dhalinyarada wuxuu u jiran jiray sida qof Soomaaliga u jirto, wuxuu u hadli jiray sida qof Soomaaliga u hadlo, wuxuu u dhaqmi jiray sida qofka Soomaaliga u dhaqmo. laakiin hadaba intiiba isbedel weyn ayaa ku dhacay oo ninka dhalinyarada wuxuu u labisanayaa, u dhaqmayaa, u hadlayaa ama uu casri u haystaaba dhaqamo dhanka iyo galbeedka iyo wadamada kale ee dunida inuu ka yimid in lama socdaba inagaba. Maxamed, maadaama aad sheegtay in saameyn badan uu bulshadeena ku yeeshay, hadda saameynta ugu badan dhankee ayay ku dhacday ama dhinacee ka jirtaa? waxa ugu badan barashadii oo ninka dhalinyarada markaynu dheeranahay ababkeena koowaad waxa kamid ah tacliinta kamid ah oo qofku markuu barbaarayo tacarrufka ama barqaarka koowaad oo soo qaato waa tacliintii ayuu ku jiraa. ninka dhalinyarada weli waxa laga yaabaa ganacsi iyo hawo kale adduunka gelin waxa hadda uu gacanta ku hayo waalidkiisna gacanta kula hayo waa tacliintii. marka wuxuu hoos uga dhacayaa hankii iyo himiladii laga lahaa inuu taagsado. waxaan arkaynay hadda imtixaanka qaranka aan fiiriyay ardada kaalimaha koowaad ka gashay waxay duruufaha gaarka qabto oo xiyaha qabiiliyada degan oo aan baraha bulshada awood u lahayn ya kale boqolka arday ee qaranka ugu sareeya kulli dib u fiir khalfiyaadkooda dib u fiir marka la wareysanayay kulli waxa ahaa arday aan awood u lahayn fududeeyaha baraha bulshada aan awood u lahayn ay ahaayeen oo qalinkooda iyo buugooda waxa way kaliya awood saaray. ninkii dhalinyarada ahaa oo waxa weeye internetkii iyo telefonkan waxa weeye beersalaha iyo adduunkan haystana meesha casharadii uga faa'iideysan lahaa wuxuu uga faa'iideystay maaweelinta inaga inuu waxyaalo qosol iyo entertainment inoo soo dhigo. marka asagiiba tiisi ka baxay intuu anagii waxa weeye waqti la siinayay. marka dhanka tacliinta ayay saameynta ugu badan ku yeelatay hadda imtixaanka dawladda wuxuu inuu ku filan yahay casharba. ugu dambeyntii taladaada maxay noqonaysaa ku aadan saameyntan aadka u badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed uu ku yeeshay baraha bulshada? wallahi taladayda waxaan oranayaa oo aan la wadaagaya dhalinyarada Soomaaliyeed aan kula talinayaa waxaan leeyahay tartan iyo tacliin baa lagu taabagaaraa. ninkii tacabka beertaa dhaqso wuu tanaadaa, ninkii taladu sheegtaa tahli waaye samihiis laba la dhaafaa. taariikhda aadmiga ninba tuu samaysto arre idagla tagaya adiguna TikTok iyo tira aan dhammayslayn yaani tacab khasaariyo tiraanye kugu rido asaga la tabar noqo tubta waxaan la faalle tagtadii ku sheegtay maadada u taaghay adoo timir askuma kara tintin habeere ruuxii hore tage waxa weeye afalaa ama salafa hadda xaaladu maraysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxa weeye dhaliil looga dhigay YouTube iyo TikTok hadda aragtay inaad argacaliya asaga ku dhaafe waxa weeye waxa ku dhaafay wiilkii dhalinyarada ahaa oo aan
aan waxa weeye TikTok iyo Facebook min isticmaalayeen xiriyaha qaxootiga joogo tabaalaysnaaba ku dhaafay adoo haysta intaasna uga faa'iideysan kara waxa weeye inaad tacliin dheeraysina way ku sheegtay marka waxaan leeyahay tagtadii ku dhaaftay timaadada u taaghay mar dambana waxa weeye ha ku sirmina waxa weeye waxa rajaynayaa arday walba iyo nin kastoo dhalinyaro ah oo ay si xun u saameysay inuu inta cashar ka dhigto hadda ka bacdi uu diyaar garoobo imtixaamada dambe iyo waxa weeye guulo dambena uu soo hoyo waaridkiis iyo ummadda Soomaaliyeed anagoo dhan baa ku wada farxayna qof kasta Soomaaliya guul gaarina uu baraaro u horseedo